sheekooyinka cajiibka ee dunida waa mid soo taraya layaabkii ama kaaga waa mid isdaba jooga gaar ahaan dhinaca Soomaalida. Oday 72 jira iyo gabar 17 jira oo Soomaaliya ayaa isbuucan qabsaday baraha bulshada ay ku kulanto ee Soomaalida, taas oo dhalisay falcelino kala duwan. gabar 17 jira oo Soomaaliya waxay ku raacday odiga lacag mise jacayl. warbixintan ayaan ku dul istaagi doonaa, laakiin marka hore waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto adigoo ku soo biiraya Kacab Media, subscribe taabanaya, like-na taabanaya, saaxiibadana la wadaag isla markaana u shargaray. toddobaadkan baraha bulshada waxaa qabsaday aroos ay wada galeen oday 72 jira oo ka yimid dhinaca iyo qurbaha iyo gabar 17 jira oo Soomaaliya, kuwaas oo xafladooda arooska ay ka qayb galeen dadyo kala duwan, waxaana arinta ka dhashay falcelino kala duwan oo ay muujiyeen bulshada Soomaaliyeed. sheekada cajiibka ayaa noqotay markii arooska la galbiyay oo gurigooda cusub ay wada tageen ayaa waxaa laga soo wariyay dhacdo cajiib ah oo ay la yaabeen bulshada Soomaaliyeed. odaygii 72 jirka ahaa ee Soomaaliyeed ee arooska ahaa iyo gabadha wax aqoon hore ma aysan ka dhaxaynin marka laga reebo in la isku daray oo kaliya, laakiin gabadha ayaa ku qanacsaneed ninkan maadaama hanti fara badan uu lahaa, iyadoo kaliya gabadha fiirinaysay hantida uu leeyahay ninkaas. laakiin maxaa dhacay markii ay isku soo hareen lamaanayaasha ayaa laga soo wariyay arin cajiib ah oo ama kaagle. markii ay wada sheekaysiga gaarka ee lamaanaha la gaaray ayaa odaygii waxa uu galay suuliga si isku soo diyaariyay maadaama uu yahay aroos cusub. markii uu ka soo baxay suuliga ayaa waxa uu sameeyay lugtiisa mid ka mid ah ayuu iska siibay oo markii horeba lugta waxa ay ahayd mid caaga. gabadhii ayaa naxday oo maba aysan ogeyn in uu lug leeyahay. haddana waxa uu sameeyay ilkihiisa ayuu iska siibay oo markii horeba feeg ayay ahaayeen ama gilis. gabadhii ayaa mar kale naxday oo maba ogeyn in uu ilkala yahay. haddana waxa uu iska siibay gacantiisa mid ka mid ah oo caag ahayd oo markii horeba gacan ma lahayn oo waxa ugu jirtay gacan caaga oo faalsa ah. gabadhii ayaa sidoo kale naxday oo indhaha cadaysay. haddana waxa uu iska siibay timihii madaxa ugu yeelay oo markii horeba timahaasi ma uusan lahayn oo waxay ahaayeen kuwo buroka ah. gabadhii ayaa amakaad iyo layaab jabsatay iyadoo gabay ahaanba ka orday qolka isla markaana u baxday banaanka. gabar todobada ka bixinaysay oo taagneyd ilinka hore ee qolka ay ku wada jireen lamaanayaasha ayaa aragtay gabadhii caruuska ahayd oo orod jabsanaysa, iyadana waa ay la jabsatay. daaradda guriga waxaa fadhiyay hooyada gabadha oo waxay weydiisay maxaa idinku dhacay maadaama gabadhii caruusada ahayd ay gabay ahaanba qolka ay ka soo orday iyadoo kaba la'aana. waxaana daba ordaya gabadhii kale ee todobada ka bixinaysay. hooyadii ayaa weydiisay caruusada oo maxaa ku helay oo aad kaga soo orday gurigaagii. gabadhii ayaa waxaa iyadoo qalqalsan ay ku jawaabtay ninkii waa uu kala daatay oo ula jeedo ninkii aan guursaday. gabay ahaanba waxyaabaha kala duwan ee uu watay markii hore waxay ahaayeen kuwo faalsa. gabadhii ayaa ama kaag iyo layaab jabsatay. sheekadan qosolka badan ayaa ka turjumaysa haddii shakhsi aad ku raacdo lacag wax kasta ayaa laga filan karaa, laakiin haddii jacayl ay ku raaci lahayd isla markaana labadaas shakhsi dhex mari lahaayeen jacayl waxay ahaan lahayd arrintu mid caadiya. baraha bulshada ayaa saacadihii ugu dambeeyay arrinkan laga wada hadalhayay iyadoo arooskaasi uu noqday mid cajiiba isla markaana laga soo wariyay arrinjada Soomaalida mid ka mid ah kuwaas oo gabadhii ama kaag iyo sidoo kale ehelkeeda ay jabsadeen maadaama ninkaasi uu gabay ahaanba waxyaabaha uu isticmaalayay ay ahaayeen kuwo